ragga ay khiyaanaan dumarka, dumarkana ay khiyaanaan ragga. teleefankayga xoolahayga soo celi bis. wax aan kuu soo celaa male lacagtaas muxuu u siiyey walaashayda muslimada ahayd? sidaasi ma fiicno qof adiga mustaqbalka leen inaad khiyaanto, aad lacagiis aad ka daldashato oo waxaa rabta aad ka samaysto, hadhowdii aad dhahdo aniga keliya waxaan rabay lacagtaada oo lacagtaada oo keliya rabay adamadu ku jecel. soo dhawaad saaxiibada qiimaha badan ee aan hawada ku saaxiibo walaalkiina ibnu abubakar. fadlan haddaad barteena ku cusub tahay follow garey, subscribe saar, aad u mahadsan tahay. muuqaalkana like saar, lagta waxay naga caawinaysaa inuu video meel fog gaaro. aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waxaan ka hadli rabnaa khiyaanada jaceylka. beryahan social media waxaa qabsaday in ay ragga ay khiyaanaan dumarka, dumarkana ay khiyaanaan ragga. sidaas waxaa ula jeedaa dumarka iyo ragga waxaa ka dhexeeyo wax la yidhaahdo jacayl ama xiriir. horta jacaylku muxuu yahay? jacaylku waa isfahan oo ka dhexayso laba qofo, ayna ku dheexan tahay kalsooni iyo kala gacayl. okay, hadda midka la yidhaahdo Ridwaan Isaaq beryahan wuxuu soo bandhigay video inaad u jeedaan. adiga jecel ma leedahay? ani haa qofka aad jeceshahay magaciisa marka? ani cabdirasaaq aldhaa. yaa cabdirasaaq xamdiye ee walaalay maxaa kaa galbada, maxaa kaa hagraday, maxaa kaa xasday xamdiye teleefankayga xoolahayga soo celi bis. wax aan kuu soo celaa male ani xoog maan kaaga qaaday mise qoraya kaaga qaaday. waa daawateen videoga. waa wiil rag calaacalayo oo leh ii soo celi lacagtayda iyo iphoneka aan kuu gaday. wuxuu u gaday iphone 13 pro max iyo wuxuu siiyey lacag. ayadan waxay joogtaa ii sheegadiyo waa Kenya inay joogtaan filaya. kolley Ridwaan Isaaq wuxuu joogaa Kenya, ayadana Kenya joogtaa. isagana Soomaaliya ka tagay, Kenya darteeda u tagay. lacagtaas muxuu u siiyey? iphonekaas muxuu u gaday? wuxuu ka leeyahay mustaqbal guur ah. qofka markuu xiriirkaa la dhexeeyo aad isjeceshihiin, wax walbaa u samaysaa. sababta aa ugu samaynaysa maxay tahay? waa waxaad ku hanweyn tahay in ay noqoto gabadhaasi ilmaha aad dhali doonto hooyadooda. balse haddii aad khiyaanto ka waran? waa qofkaasi kalsoonidaas intaasoo dhan uu ku siiyey, oo haddii aad khiyaanto ka waran? ragga dad way khiyaanaan, dumarkana way khiyaanaan. gabdhaha Soomaaliyeed hadalka inaan kusii dheereeyo ma jecli. gabdhaha Soomaaliyeed walaalahayga, walaashayda muslimada ahayd, sidaasi ma ahan. gabdhaha dhan horta ii sheegade ma wada sinno oo shantan fard ilaahay ma wada simin. qof welibo wuxuu leeyahay qalbi. qof welibo si ayuu u socdaa. marka dumarka fiican ayaan la hadlayaa. inta fiican way fiican yihiin. inta khiyaanada badan waxaan dhihi lahaa arrintan ka waantooba. waa arrin xun. ma fiicno qof adiga mustaqbalka leen inaad khiyaanto, aad lacagiis aad ka daldashato oo waxaa rabta aad ka samaysto, hadhowdii aad dhahdo aniga keliya waxaan rabay lacagtaada oo lacagtaada oo keliya rabay adamadu ku jecleen. marka intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheergarayso oo walaalo badan aad gaarsiiso si ay ugu waantoobaan arrintan. aadaad mahadsantihiin sida quruxda aad ii daawateen. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.